Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaantiin meel walba joogtaan. Kusoo dhawaada barashada luqadda Ingiliishka. Waa anigoo macallin Suhayb teacher Suhayb. Runtii arday badan way soo weydiisay ChatGPT sidee uga baranaa English, ChatGPT English uga bartaa, English ma ka baran karaa ChatGPT. Marka maanta waxaan rabaa inaan la wadaago qaabka ChatGPT English uga barto. Please haddii aad ku cusub tahay pagekayga follow dheh, like dheh videogan, share-na asxaabta nala wadaag, YouTube-kaygana booqo kanaalkayga because waxaan soo dhigaa video English aad ku baran kartid. Okay, dhammaantiin marka koowaad waxaad tegaysaa Play Store. Haddii aad mobile Samsung haysatid waxaad tegaysaa Play Store. Haddii aad mobile iPhone haysatid waxaad tegi doontaa App Store-ka. Kadib waxaad soo search garaysaa, ku qortaa chat kadib GPT waa kaas ka koowaad. Then waa kan iska ilaaliya, waxaa jira dhowr application oo ChatGPT ku qoran tahay laakiin maaha, waa khalad. ChatGPT ka saxda maaha, yaa iska ilaaliya. Dad badan oo waxaa jira ChatGPT khalad download garaysta kadibna xaysiis badan la kulma. Marka waxaan oo dhan waa fake, ChatGPT fake. Ka saxda waa ka koowaad, kan ay ku qoran tahay the official app by OpenAI. Shirkadda OpenAI baa samaysay ChatGPT. Marka waxaad ku garan kartaa calaamadooda waa kan, loogadooda waa qaabkan. Markaa kaa download garaysta dhammaantiin, ani already waaban download garaystay, bas waxaa leeyahay update aan leeyahay. So update markaa dhaho waa kan, application waa kan. Then update markaa dhahdid oo open baa leedahay, ama application markaa download garaysatid open baa leedahay. Open markaa dhahdid kaliyaad waa kan, halkan waa meeshaad ku qoraysay. Horta waxaan aan salaamaynaa, hey baan leenahay, ChatGPT how are you baad ku leedahay. Waa qof adi kula hadlayo kala camal oo kuu jawaabayaa, ama waa fiicanahay, adu see tahay buu ku leeyahay. waa la sheekaysanaysaa, waa la wadaagaysaa. haddii aad dhibaato qabtid oo waxaad weydiisanaysaa maaragtay advice, talooyin baad weydiisanaysaa. haddii aad luqad baran rabtid English oo kala camal uu ku baraa, waa macallin buu ku noqonaa, mar macallin buu ku noqonayaa, mar aab buu ku noqonayaa, mar adug waxaad rabtid qaabkaad rabtid adaa u isticmaalaya. So imika maadaama English aad ku baranaysid waxaad leedahay I'm from Somalia leedahay. kadibna waxaad leedahay no iska daa, uma baahna I'm from Somalia, bas kaliya waxaad ku qortaa I want to learn English from zero and in Somalia ku qor, in Somali raaci siduu luqadda Soomaaliga uu kugu turjumo. English markuu ku qoro kadibna wuxuu ku raacinaa Soomaali macnaheega, Soomaali af Soomaali buu ku qoraa. saa markaa dhahdid waa kan kelmadihii wuxuu ku leeyahay starting from zero xagee kaga soo bilaabaa. Common phraseska oo kale camal, vocabulary-ga bas waxaa ka leedahay inaan vocabulary English bartaa rabaa, vocabulary badan. I want to learn more vocabulary. haddii aad rabtid inaad vocabulary-ga siyaasadid aad maaragtay vocabulary badan aad baratid, waxaad leedahay I want to learn more English vocabulary. waa kaas. kadib vocabulary badan buu kusoo qoraa. waa kaas hello, salaan, good morning, subax wanaagsan, thank you, mahadsanid, yes, ha, no, maya. waxaad ku dhahdaa aniga waxaan u yaryihiin easy body, I want more vocabulary. haddii aad rabtid maalin kasta waxaad ku dhihi kartaa 10 vocabulary i qor. So everyday 10 vocabulary wuu ku siinaa. 10kaa vocabulary markaad soo akhrisid kadibna waad ula iman doontaa. I want more, waxaad leedahay I want more words iska qorba waa caadiye. Then waa kan kadib father, aabe, mother, hooyo, brother, walaal, sister, walaasha, friend, saaxiib, days of the week, Monday, Isniin, Tuesday. waa kaas qaabkaas kale ku baraa. haddii aad laakiin aad tahay qof hadda ugu horeyso kala camal English, waxaad leedahay I want to learn from beginning. So because I don't speak English baa leedahay, so wuxuu kaaga soo bilaabaa from zero, kaaga soo bilaaba qofkaasoo kala camal. A B C D buu ku leeyahay oo ku baraa. A waa kan, B C D from basic kaaga soo bilaabaa. marka haddii aad rabtid waxaad ku leedahay maalin kastana write a short story for me to learn English, short story for me to
learn English with meaning kadibna waa kan so waa kan story yara uu ku qoray here's a simple story yaro simple ah oo basic ah. Once upon a time there was a little cat named Milo was very curious. Storyga markaad akhrisid kadibna micno ku raacina af Soomaali ahaan kugu qoraa waxaa jiri mar bisad yar markaa ChatGPT waa macalin sax walaa waa macalin dhisan oo macalin aad ka faa'iidi doontid. Kadib waa kan in this story wuxuu ku dhahay you learn words like waxaad ka baranaysaa kelmadahan oo kale camal kelmadahan oo kale cat oo kale bisad ama yaanyor curiosity oo kale wax laga wadaa xiiso leh waxaad xiisaysid. Markaas waa ka milk oo kale caana laga wadaa happy wax laga wadaa faraxsan markuu qof faraxsan yahay ama very happy waan faraxsanahay. Marka saasoo ChatGPT kuu baraa aad u rabtid maaragtay ChatGPT waxaa dhisa English haddaad serious tahay kaliya ChatGPT soo logorayso application waa free 100% bas u isticmaal. Application waxaa dheer halka yar microphone-ka uu ku sawiran yahay waa microphone. Haddii aad rabtid inuu kaa saxo pronunciation-kaaga kaliya halkaas taabsanaysaa microphone-ka kadib ChatGPT waa maqashinaysaa adigoo story akhrinaya kadib waxaa ku leedahay story-ga sax pronunciation-ka English-ka kelmadaha ugu dhawaaqisid marka uu kaa saxaa. Ani hadda ma sameyn kari because microphone baa igu jira hadda oo video-gan ku record garanaya marka laakiin idinku tijaabiya kaliya adoo story-ga akhrinaya microphone-ka soo daaro halka hore xagga hoose markaad soo daaratid story-ga then akhri marka akhrisid ChatGPT waxa ku dhahdaa iga check pronunciation-kayga oo iga sax ku dheh marka uu ka caawinaa pronunciation-ka ilaa dhawaaqan waa loo baahan yahay moogtahay markaad English-ka practice gareynaysid waana dhawaaqtid ereyga waana ku dhawaaqtid. So qaabkana ChatGPT loo isticmaalaa fadlan haddii muuqaalku ku cajibiyo please follow TikTok-gayga wax badan ma ka faa'iidi doontaa like deh asxaabta ula wadaag u share garee YouTube-kaygana soo buuqo oo subscribe deh adoo raaliya aad iyo aad u mahadsantihiin.